iyadoo Afrikadu qayb ahaan si kala tagayso dalal mid ahaa doonayaan inay kala tashadaan qaar kalena colaad dhexdooda qarka u saaran yihiin doc kale oo Afrika ah waxa soo ifbaxaya ilays tiirsi leh oo hormuud u noqon kara dib u qaabaynta qaaradan oo dhan mid ahaan gobolka ugu xasaradaha iyo colaadaha badnaa sanadihii dhawaa Afrika ayaa isu bedelaya tusaale looga dayan karo ka kabashada burburka dawladeed iyadoo aan kaalmada dibadda iyo faragelinada shisheeye lagu tiirsanayn Mali waxay wajahday laba inqilaab oo ciidan 2020 ilaa 2021 waxa dalkaas laga ceyriyay gumaystihii hore waa Faransiiska oo saameyn xoogan ku lahaa siyaasaddiisa gudaha sidoo kale waxa ciidanka talada qabsaday joojiyeen mashruucii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaas waxaana isla goorta Mali xulufo la noqotay labada dal ee kale waa Burkina Faso iyo Niger oo labadoodaba askari hogaamiso saddexdan wadan waagaasba waxay ka baxeen midow dhaqaaleedkii dalalka galbeedka Afrika oo ay ugu yeereen inuu yahay mid shisheeyaha u adeegaya isla waagaasna waxay bilaabeen asaaska midow dhexdooda ah oo lagu magacaabo Alliance of Sahel States waxa ay dalalkooda ka ceyriyeen guud ahaan wadamadii galbeedka ee Faransiisku u horeeyay docda bariga waxa ay la hareen Ruushka oo weli jaal dowladaha Burkina Faso iyo Niger waxayna iyagu dhexdooda samaysteen wax walba oo ay uga baahnaayeen galbeedka sida bangiga maalgashiga iyo horumarinta saaxil ka oo ka shaqeynaya dib u dhiska dalalkaas la'aanta kaalmo galbeed TV ama warbaahin xambaarta afkaaraha midnimo ee bulshada saaxil ka oo qorshuhu yahay inuu noqdo codka rayidka saddexdan dal iyo ciidan ay ku midaysan yihiin dhinacyadani militarigaas oo loo diyaariyay inuu ka howlgalo xuduudaha dalalkan ee kooxaha hubaysni ka dagaalamaan midowgooda AES lagu magacaabo oo haatan laba sano jirsaday waxqabad ahaan waxa uu goor horeba ka saameyn batay ururadii fadhiidka ahaa ee qaaradda qorshihiisuna waa in sanad walba waxqabadyo taabasho leh loo dabaaldego halkii la isugu iman lahaa xus jiritaan warbaahinta oo diristay halka ay haatan marayaan waxqabad ballanqaadyadoodii 2 sano ka hor ayaa warisay in ciidamada ay ku midaysan yihiin haatan yihiin cududda kali ah ee kooxaha hubaysan xadadkooda kula xarbiyaysa bangigooda horumarintu waxa uu goor horeba ku howlan yahay dib u dhiska jidadka tamarta iyo maalgelinta shirkadaha madcanta halka xogtu intaa ku dartay inay dalalkani qarka u saaran yihiin samaysashada lacag ay ka siman yihiin dhawaan waxay dalalkooda ka mamnuuceen muwaadiniinta Mareykanka kadib markii dalalkan Mareykanku ku daray liiska wadamada aan gali karin dalkaas dhaqdhaqaaqyadooda galbeedkuna waxa ay sabab u noqdeen fashilka ugu weyn ee haatan dawladda Faransiisku ka wajahayso galbeedka qaaradda Afrika mid naadir ah oo hogaamiyeyaashan ciidamada ka yimid ku dureen madaxdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee iyaga ka horeeyay ayaa ah inay waagooda ka shaqeynayeen sidii midbakan kale jagada ugu hayn lahaa halka ay iska kaashan lahaayeen xal u helidda mushkiladaha gobolkani wajahayay oo haatan loo arko inay tahay ahmiyadda koowaad ee hogaamiyeyaashan ciidanka ah